الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحين كسو قد جرني عشرة دروستيني تحنض أهيد وأي كشكينيين توصيات يدر دارمو ووين وكسب سنقف كستو مسلم سيدا أو نولشيسا وغدق لها ميد دين إلهي سبحانه وتعالى كسوتا وحوي دردارن كيني وقدم بيي waxaynu soo marnay in uu sheekhu dardaarmay in qofka walaalka ah cudurdaarkiisa ka aqbashid oo aad iska cafisid maadaama uu ku leeyahay cafiba kun cudurdaar ha ku sameeye iska cafi sababtoo ah wuxuu dhaama qofka soo adkeenaya ee ma garanaysaa khaladka iyo waxyaabaha uu ka galay isku soo adkeenaya sheekhu wuxuu yiri ha fashilin an muslimin sirran qof muslim ah sirtiis ha ka fashilin محايل النبي صلى الله عليه وسلم وحجري من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته في الدنيا والآخرة قفكي أسترة قف مسلم أو ولالكي عورديس قفكي أسترة إلهي سبحانه وتعالى أنا وحو أسترة قفكس عورديس أدون يا آخرة مركنا وحال الدنيا قفك مركا لو ديبتو wax sir ah in uunan faafin sirtuna badanaa waxaa la dhahaa waa sirta saddex qof ama laba qof oo kaliya ay wada og yihiin laakiin sirtu haday 4 qof iyo 5 qof iyo 7 qof iyo 8 qof iyo 7 qof ay ogaadaan ama ay gaadho waxa sir lama dhaho waxyaalaha cayda ay ceebta social media ku jirna iyadoo way ka daran tahay almuhim waxa weeye qofka walaalka haduu sir ku dhiibto waxaa la doonayaa in aad sirtiisa u haysid oo nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskan qaaliga ayuu inoo soo gudbiyay oo ah qofka muslimka hadii uu qofka kale walaalkii muslimka cawradiisa u asturo ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa isna cawradiisa adduun iyo aakhiro u asturaya imse ceebood ayaan leenahay haddana aynu doonanaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inoo asturo habeenii maalin dadku way dambabayaan way ceebobayaan xafad kastaba intaas ceebood oo khaas ah ayaa taala haddana waxay doonayaan in ilaahay subhanahu wa ta'ala ceebahooda u asturo hadii aad doonaysid in ilaahay subhanahu wa ta'ala ceebahaaga ku asturo qofka islaamka ku dadaal ina isna ceebtiisa u haystirtid laakiin adigu dadka islaamka ceebahooda inta fashid ama aad sheegtid hadhowtana ha iska suuraysan ama ha sugin in ilaahay subhanahu wa ta'ala cawradaada uu ku asturo wuxuu kaloo sheekhu yiri waqaabilil qadiica bisillati waxaad ku qaabishaa kuwa ku jaray ee qaraabadaada ah ama kuwa saaxiibadaada ah ama dadka ay isku dhawdihiin ee ku jara sida dadka aad fadli soo wada sameeyeen sida deriskaaga oo kale sida qaraabadaada oo kale sida dad ma garanaysaa ay soo taqaaneen oo la doonayo in ma garanaysaa aad si walaaltinimo isku dhaqantaan kuwaas waxaad kula qaabishaa xidhiidh waa adigu xidhiidhi haday doonaan iyagu haba ku gooyeen laakiin adigu waxaa sameeysaa xidhiidhi ayuu leeyahay sheekhu wali saata بالإحسان waxaad ku qaabishaa xumaanta lagu sameeyo wanaag ku qaabil ayuu leeyahay qofku hadii uu xumaan ku sameeyo xumaan ha ku sameyn oo marka hore bal wanaag ku qaabil oo waxa jira xumaano fara badan wanaag lagu qaabili karo waxa jira qofku inuu ku khaldamo waxa jira qofku inuu wax ku sameeyo adiga oo aadan wali ka aarsan karin waxa jira qofku inuu wax kugu sameeyo haddana wixii uuna si kas ah kugu sameyn waxyaalahaas oo dhan ayaa jira markaan qofku markuu xumaan kugu sameeyo isla judhiiba xumaan ha ku sameeyay bil weydii wuxuu kugu sameynayo oo wanaag ku qaabil ayuu leeyahay sheekhu wadulma bisabri waxaad ku qaabishaa dulmiga samir ku qaabil oo hadii lagu dulmiyo iska samir ayuu leeyahay dardaarankaas wal qufraan iyo toobadkeen iyo ina qofkii uu
dembi dhaaftid macnaha qofkii markuu ku dulmiyey ha iska samirin oo keliya haddaad iska samiritid laakiin wuxuu kugu sameynayay aad qalbiga ku haystid oo aad doonaysid inaad maalin ka arsatid waa balaayo taas iyadaa dhibaataa waxaa laga yaabaa waxyaalo fara badan inay ku geyso inaad samaysid laakiin qofkii u dhaaf isla markiiba wixiiba hadday ka soo wareegaan maalmo ama bilo dibna aan loogu laaban doonin qofka isagaga dhaaf oo waxba ha ka daba carcarin maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sil man qada'aka qofkii ku gooya adigu xidhiidhi waxfu amman dalamaka qofkii ku dulmiyana cafi wa ahsin ila man asaa ilayka qofkii ku xumeeya ee wax xumaan kugu sameeya adna wanaag u samee wajtanibil hasada fi umuri dunya wuxuu kaloo sheekhu yiri waxaa ka fogaadaa xaasidnimada ka fogow oo qof walaalka ah nicmo uu siiyey oo nicmooyinka adduunku way farbadan yihiin qof buu ilaahay cibaado siin karaa qof buu cilmi siin karaa qof buu hanti siin karaa qof buu caan dhalay ka dhigin karaa oo caan noqon karaa qof buu aqoonta maadiga jaamacadaha lagu barto qof buu u fududeyn karaa qof buu ilaahay subxaanahu wa tacaala darajo sare siin karaa qof buu wax siin karaa marka sheekhu wuxuu leeyahay qofkaas inaa xaasidid iska ilaali fi umuri dunya wax kasta maxaa yeelay umada ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka kula nool qof ilaahay buu wax siiyey qof buu qurux siiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qurux iyo magarantaasi qof buu aqli siiyey oo markuu hadlo aqligiisa ka yaabasa markaana umada kula nool ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinka uu wada siiyey oo laga yaabaa magaalada ku nooshahay in ay intaas oo kun oo qof ka soo toosaan midba uu ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmo siiyey waxaas oo dhan nicmooyinka ilaahay uu siiyey ha ku xaasidin maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la taxasadu hays xaasidina oo qof kastaba nicmo leeyahay qofkaas nicmadaas macnaha iska xaasidina wuxuu kaloo leeyahay dadka waaweyn weynee وعظم الأكابر وارحم الأساقر شيخ وحو يري waxaan u dardaarmayaa in la weyneeyo dadka waaweyn iyo in loo naxariisto dadka yaryar oo dadka waaweyn waxaa la doonayaa in loo naxariisto qofka weyn sababtoo ah qofku mar hadduu weynaado waxaa jira waxyaabo uuna soo qabsan karin waxyaalo uuna dhihi karin waxyaabo uu qalbigiisa ka daahayo sidii qofkii yaraa isla markiiba ku jawaabayay isla markiiba firfircoona isla markiiba ku la soconayay maaha in badan uu ka dambeeyaa marka xal gadoonaya dadka waaweyn inaa u naxariistid dadka yaryarna dadka waaweyn inaa weyneysid dadka yaryarna inaa u naxariistid sababta dadka waaweyn inta waxay jecel yihiin in la weyneeyo oo xoogaa la faanayo oo xoogaa ninkii weynaa lagu dhaho in aqli badan baa tahay in waaya aragnimada badan baa tahay nin adigu waxaana ugu horeeyay baa tahay ayuu inta jecel yahay marka inta hadalada inta ku tusinaya in hadallo waaweyn ay yihiin ku dheh qofkaas dadka yaryarna u naxariiso sababta dadka yaryar intaas way khaldamayaan qofku markuu yar yahay inta khalad buu galayaa intaas khalad buu galayaa markaana qofku markuu yar yahay maadaama uu khalad badan yahay isaga naxariiso sababta dariiqan adoo soo martay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laysa minna man lam yarham saqirana nagama mid maaha dariiqeega maaha akhlaaqdeeda iyo diinteeda sidaan u haysano uma haysto wadadii wanaagsanaa ee la sheegay ee diintu sheegtay siday ahayd maaha qofkii aan u naxariisan qofka yar man lam yarham saqirana walam yuqir كبيرنا قفك وين أما قفك وين عن دورين قفك وين يسقو كل ما دقال مايو وحلقة يابا إن حوجا ير دباتة يركاسو قادو لكن